iyadoo guud ahaanba si rasmi uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad iyo sidoo kale dugsiga hoose dhexe ee sideedaad ayaa waxa uu sidaas si la mid ah maanta iyana si rasmi uga bilaabmay magaalada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag waxaana ugu horeyntii munaasabadii lagu daafurayay imtixaankaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag Mr. Kaysar Shire Saalax waxaana uu faahfaahin ka bixiyay dhammaanba guud ahaan tuulooyinka iyo degmooyinka hoos yimaada magaalada Ceelafweyn ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale magaalada Ceelafweyn gudaheeda guud ahaan ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada afraad iyo sideedaad ee dugsiga dhexe iyo sidoo kale dugsiga sare sanadkan waa sanadkii ugu badnaa labada dugsiba dugsiga hoose dhexe dugsiyada hoose dhexe degmada Ceelafweyn afar dugsi baa gelaya fasalka sideedaad waxa weeye dhool yare oo Ceelafweyn gudaheeda 94 arday ayaa gelaya iyaga waxa ka socda afar tuulo waxa weeye Sincaro xamilka darweyne iyo kal sheekh 9 arday kal sheekha 12 arday darweyne 5 arday xamilka iyo 5 arday Sincaro fasalada afraad ee dugsiga sare waa sanadka iyaguna ugu badnaayeen tirada waxa gelaya 48 arday rajo u fiican baan idinka qabnaa runtii in Somaliland ama qaranka iyo gobolka waa guul ka soo hoysay sidii la inooga bartay ayaynu doonaynaa sidii la inooga bartay guushii inaynu hadda soo hoyno ayaynu aad ugu rajoonaynaa idinkana aan ka rajaynaynaa insha Allah ta'ala xildhibaan Gamaal oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceelafweyn iyo sabarfaysarada kala duwan ee imtixaankani ka mas'uulka ah ayaa iyaguna dhankooda si weyn ardayda ugu la dardaarmay in imtixaanka si niyad sami habsami iyo sidoo kale dhowrsoon ay ka muuqan tahay isla markaasina ay ku dheehan tahay nabadgelyo ay imtixaankani ku galaan si bay yiraahdeen aan imtixaanku ugu adkaanin degenaanshiyo qof waliba kursigiisa markuu fadhiisto warqadda loo dhiibo waxa weeye in qof waliba degenaanshiyo isticmaalo haddii la yiraahdo waxaanu rajaynaynaa reer Ceelafweyn sidii horeba looga bartay ama secondary ahaadeen ama dugsi dhexe ahaadeen inay gobolada number 1 ka galaan ayaan idin rajaynaynaa si ku gal doonaa kalaasiyada imtixaanka kalaasiyada inuu ka iman doonaa ilaaliyaha si wanaagsan ula shaqeeya si wanaagsan u yeelay la shaqeey isoo baa la idinku hayaa waxa weeyaan dad tijaabada wixii aad kala soo baxdo ayaa ku meel mari karta adiguna ku kalsoonaan kartaa waxa weeyaan wax ka soo baxay dugsigii maxay waa inoo wada halkan marka waxa weeyaan adigoo Sincaro ah oo durugsan ayaa waxaad ku gashay Ceelafweyn oo ah dadhool yare waxa iyaguna dareenkooda ka muujiyay qaar ka mid ah ardaydii maanta galeysay imtixaanka shahaadiga ah si fiican ugu dhamaaday iyo natiijo wanaagsan insha Allah taala faraxsanahay imtixaanka shahaadiga 2022 waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay dareenkaygu aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaanu rajaynaynaa insha Allah inaan guul ka gaarno عبد الرحمن إسماعيل سعيد TV قرنك سوماليلاند Ceelafweyn